wasiirka kalluumaysiga kheyraadka badda iyo dekedaha ee dowlad goboleedka Galmudug Xasan Maxamed Siciid Gacaliye oo maanta shir jaraa'id ku qabtay hoteelka Nomad ee magaalada Nairobi ayaa sheegay inuu u taagan yahay xilka madaxtinimada Galmudug. kulankan oo ay ka soo qayb galeen xildhibaano siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin kale ayaa ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay musharax Xasan Gacaliye oo ka warbixiyay sababaha uu isugu soo taagay xilka madaxtinimada Galmudug iyo waxyaabaha uu qaban doono. sida la wada ogsoon yahay dowlad goboleedka Galmudug waxay gashay xilli kala guur ah waxaana laga shaqeynayaa sidii loo dhisi lahaa baarlamaan cusub iyo sidii loo dooran lahaa madaxweyne cusub. haddaba waxaan maanta halkani ku cadeynayaa inaan u taaganahay inaan u tartamo oo aan qabto xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ee Soomaaliya. waxaan wacad ku marayaa in haddii dadweynaha Galmudug igu aaminaan xilkaasi inaan u shaqeyn doono si daacadnimo ku jirto iyo inaan Galmudug gaarsiiyo horumar la taaban karo iyo cadaalad ay u baahan tahay. barnaamijkayga siyaasadeed iyo midka dhaqaaleba waxaan u soo bandhigi doonaa bulshada Galmudug maalmaha soo socda. waa mahadsantihiin. gudoomiyaha dhalinyarada Galmudug State ee bariga Afrika Cabdirasaaq Mire Kulmiye oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ururkiisu uu soo dhaweyn doono musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada Galmudug ayna la shaqeyn doonaan haddii uu musharaxani ku guuleysto xilka madaxtinimada. inay ka fikiraan ayoodii mustaqbalka ayna u fiirin ninkan waa hebel ninkan isxignaa ee u fiiriyaan wax qabadka uu qaban karo gobolka iyo maamulka meesha ka jiro ayagoo u fiirinay aqoonta uu leeyahay inta uu wax qaban karo heer iyo horumarka uu gaarsiin karo gobolka inay u fiiriyaan ayna u doortaan aqoonta uu leeyahay wax qabadka ayna u dooranin saaxiib baan nahnay xigtaan nahnay iyo waas garanaynaa. ururka dhalinyarada wuxuu soo dhaweynayaa dhammaan musharaxiinta u sharaxan xilka madaxtinimada oo kamid yahay Gacaliye Xasan Maxamed Siciid ku magac dheer Gacaliye waana soo dhaweynaynaa waxaana u ballan qaadaynaa haddaan ururka dhalinyarada Galmudug haddii ku soo baxo xilkaas inaan la shaqeyn doono si gacmo furan ah ku soo dhaweyn doono waana mahadsantihiin billahi tawfiiq. mas'uuliyiintii kale ee kulankani ka soo qayb gashay ayaa soo dhaweeyay una hambaliyay musharaxan u taagan xilka ugu sareeya ee dowlad goboleedka Galmudug. inay runtii sidii rag badan hore u sheegeen iska dhaafaan kanaaxiga inay maanta ay tahay arintu yaa wax qaban kara marka aqoonta uu leeyahay iyo waayo-aragnimada uu leeyahay iyo gobolka uu ka soo jeedo laftigiisu si common la sheegay inay tahay Galmudug iyo Mudug gobolka uu ka soo jeedo xaqna u leeyahay inuu mataqaana ay sheeg maxay ahayd uu ka taliyo waa ku soo dhaweynaynaa ummadana waxaan leenahay kala doorashada adikeedii taala annaguna waxa way gacan baan idinku siinaa ninka doorantaan laakiin waxaan idinku xusuusinaynaa oo idinku dhiirigelinaa inuu yahay xibnaha wax ka qaban kara runtii Galmudug inuu u taagan yahay. marka xasanna waxaan kula talinaynaa wasiirka haddii uu xilka qabto midnimada ummadda Soomaaliyeed waa mid ummadda Soomaaliyeed inuu ilaali raadiyo ka shaqeeyo gobolkana si fiican uu uga shaqeeyo shacbiga Soomaaliyeed oo mid wadanimo iyo Soomaalinimo inuu uga shaqeeyo asaga oo kaashanaya shacbiga Soomaaliyeed yaan asagana kula dardaarmayna intiina hadda halkan ka soo qayb gashana waa mahadsantihiin annaguna waxa ballan noo shacbiga Soomaaliyeed wada shaqeyntiisa iyo midnimadiisa inaanu ka shaqeyno Soomaaliya midowdo. Xasan Maxamed Siciid Gacaliye ayaa noqonaya musharaxii sagaalaad oo isu soo taaga xilka madaxtinimada dowlad goboleedka Galmudug waxaana la filayaa in doorashada Galmudug ay dhici doonto bisha Agoosto ee fooda inagu soo haysa. Suleekha Cabdilaahi Xirsi, Somali Sat TV, Nairobi.